munaasabaddan oo ujeedkeedu ahaa mid xisbiga wadani ku soo dhaweynayay taageerayaal tiro badan oo ka soo digarogtay xisbiga muxaafidka kulmiye oo ka kala socday degmooyinka Macalin Haruun iyo Maxamed Mooge. xafladan ballaaran waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo kuwa garabka haweenka xisbigaasi. munaasabadaasina waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo xubnihii ka soo digarogtay xisbigaasi muxaafidka kulmiye waxaana yiraahdeen waanan idin soo dhaweynaynaa imaatinka aad noogu timaadeen idinka oo ah xubno iyo garba ka soo baxay ka soo digarogtay xisbiga kulmiye una soo digarogtay xisbiga wadani waan idin mahad celinaynaa waanan idin soo dhaweynaynaa aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga iyo garabka haweenka heer qaran wadani dhammaantiinba waad salaamantihiin fara badan oo xisbiga kulmiye taageeri jiray oo caawa u soo digarogtay xisbiga wadani tirada dadkaasi ay dhan yihiin waa 50 qof waa tiradii ugu ballaadhnayd ee hal habeen ku soo biirta xisbiga wadani waxaan u arkayaa inuu xisbiga wadani yahay xisbiga insha Allah mustaqbalka guuleysanaya anigoo markii hore ka tirsanaa xisbiga kulmiye imikana ku soo biiray xisbiga wadani taasoo ay tahay xisbigii kulmiye oo nagu noqday xisbi qabyaaladista xisbiga wadani heer gobol heer degmo waxaan soo dhaweynayaa caawa marti sharaftan aan ku soo dhaweynay munaasabaddan ee aadka u qiimaha badan leh ka soo digarogtay xisbiga xaakimka ee kulmiye waxa weeyaan hadaan nahay anagu haweenka Axmed Macalin Haruun degmada siibaha degmada balaad aanu ka tirsaneen xisbiga kulmiye waxaanu ka soo digarognay xisbiga kulmiye waxaanu soo digarognay xisbiga wadani anagoo sababaha nugu soo digarognay halkan ku soo koobi karin oo dhibaatooyin badan aragnay oo caruurta haribaysa ka hadashay hooyooyinka taariibeen toba ka dhala waa salaamantiin anagoo ilaahay ha nooga dhigo mid wax san laga helo ilaahay ha nooga dhigo xisbiga wadani mid lagu nasto Allah ha nooga dhigo anagoo oo dhibaato badan ka hawlaysan oo ka garan weey xisbigii kulmiye anigoo ka tirsanay xaafadda daami waxaan ka soo digarogday xisbiga kulmiye waxaan soo digarogtay xisbiga wadani anagoo adkaysan weynay dhibaato anagoo adkaysan weynay dhibaatooyinka nugu hayay tacadigiisa anagoo kamid ah dadkii la jaan qaaday markuu bilaabmay ilaa iyo waqtigaana howlgalayno halgamayna waxa la waxna jidaan oo ka gaari weyn hadaan xaafadda daami biyo melihin wada hagaagsan meena wada yarba inta laamina lagu shubay daamir nala askar jiifana ma dhigan kartaan aad iyo aad ayaan uga xumahay maxaan hadee waxa dhacaya dadkeenu waxaan ku maxaan waa dad iska danyaro iska dhibaataysan waxaan ku maxaan hadee biyo ma helaan waxaan ku maxaan waxbarashada waxay nagu yiraahdeen bilaash baynu ka dhignay haddana waxa weeyaan maxaan hadee ardaydii waxaan ku maalin walba lacag baa laga qaadaa oo wad ogtiin waxaan filayaa dumarkan kontonka ah ee ka soo digarogtay xisbiga kulmiye una soo digarogtay xisbiga sinaanta daryeelka iyo isdhexgalka bulshada ee wadani waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan waxaan idin leeyahay waxaad timaadeen guri barwaaqo ku soo dhawaada waxaan maqlayay hablihii halkan ka khudbadeynayay dhammaantood waxay lahaayeen waxaanu nahay degmada Macalin Haruun degmada Gacan Libaax xaafadda daami waxaasoo dhan waa meeshii laga isbedelka inuu jeelanaayna waa kaas maanta aynu arkayno oo baahida loo qabo waa ka haamihii la xaraashay inuu inaguna rahmanaan u malaynayna oo hadda inuu iibsanahay waa wax dhici kara oo suuragal ah waa hunguru-xumada keentay go'aankii golaha wakiilada ka baxay in mooshin quutayaal kale la yiraahdo sidii mashruuc u ahaa larka dubu kiciya mashruuc sharci oo kale sidii uu yahay ayay go'aankii ilaahay ka daba taga waa hunguru-xumo hadday ganacsatadu maal gashanaysa dalku u ballaaran yahay haamaha maaha 300 haamood keenayaan magaalada berbere aad bay weyn tahay xeebaha kale dhigi karaan iyo barta mustawaha tacliimiga dalku taagay
waxa ka saddexa caafimaadka cusbitaalka weyn maalin dhow waa la wareejinaya waana la iibinaya waa dhabtaasi kuwayaalaha marka laga yimaado waxaan doonayaa hadduu daawanayo iyo hadduu arkayo khamiistana waanu sali doonaa waanunu sheegi fursad haddaan u helo horena waanu ugu sheegi jiray madaxweyne dalkan inaad taariikh kaga tagtaa doonaysay legacy baad doonaysay inaad unkanto karaamo beel iyo sharaf dhac bay kuu tahay maanta inay taariikhdaadii cunayaan oy aasayaan oy karaamadaadii baabiinayaan oo dadnimadii iyo qiyamkii iyo qiimihii Soomaaliland aad ku lahayd hog madow ay ku ridayaan kuwa kuugu sokeeya shuftada ee kugu xeeran horta taasi waa kowmad xisbigan wuxuu xisbiyada kale kaga duwan yahay kuma badna dadka xagxagta ama dadkan marka siyaasadda laga hadlayo la yiraahdo hardlinerska xisbigani ma laha dadka caytama xisbigani wuxuu u noqonayaa sabab in dalkan xukuumaddii ay u baahnaayeen 24 sannadood inuu noqdo mid sabab u noqda inay xisbiga waddan ka soo baxdo ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa